labadan fanaan ee lagu kala magacaabo Kaynan Cabdi Warsame iyo Liil Baliil miyaa iska diiday inay ku biiraan kooxaha mansooniyiinta si ay horumar u gaaraan lacag iyo dhaqaale fara badan ay u sameeyaan. Su'aashaasi waxay ahayd waxa ugu badan ee dadku isweydiinayaan maalmihii ugu dambeeyay, waxaana la arkay oo la keenay heese ay qaadeen labadan fanaan oo ay ku karbaashayaan nimankaas ayaga ah waxna ay uga sheegayaan. Kaynan oo kale hees uu qaaday erayadeeda waxa kamid ahaa Liil Baliil isaguna عادي أيوة ماك وقعتي أو توس أيوة عاي أو واحد أوليه حضرا ما حيسكو ماجن أو يسكو أركان لبدان ويل فنانين تأه يمانسون يدو سنة كي لبدو يكون يطبنكي waxa ay ahayd markii uu soo baxay fanaankan lagu magacaabo Kaynan Cabdi Warsame kadib markii uu soo saaray heestiisii caanka ahayd ee Weefin Falaag taasoo uu ka qaaday koobkii adduunka ee ka dhacay wadanka South Africa waxa dhacday in heestiisaas ay adduunka oo dhan qabsato oo boqolaal milyan oo qofood ay daawadaan kadibna waxa uu noqday fanaan caalami ah oo adduunka oo dhan laga garanayo waxaana bilaabatay in la soo xariiriyaan kambaniyaal iyo shirkado kala duwan si ay wax ugu xayisiistaan sida caadiga ahna oo ay mar walba sameeyaan markii ay qof u kala kacdo waxa la soo xiriirtay kooxdii ayada ahayd ee qarsooneyd waxayna ka dalbadeen inuu ayaga ku soo biiro oo uu la shaqeeyo ayagana uu ka amar qaato kadibna ay u ballan qaadaan inuu adduunka oo dhan qabsado lacaga waali ah oo sameeyo waana sida caadiga ah oo ay qofka ugu sheekeeyaan markii ay soo xaragelinayaan nasiib wanaagna isla xilligaas Kaynan waa uu ka diiday in kooxaas uu ku biiro ama uu la shaqeeyo maadaama uu ahaa nin wadani ah oo Soomaalinimadu ay ku weyn tahay waraysiyo badan oo ay ka qaadeen wariyaal Soomaali ah ayuuna si sarbeeba ugu sheegay wixii dhaxmaray isaga iyo kooxahaas inta kadibna kooxihii waxay bilaabeen in fanaankan ay la dagaalamaan oo ay hoos u dhigaan taageeradiisa iyo xawaaraha uu ku socdo waxaana la dhihi karaa qayb kamid ah ay ku guuleysteen oo Kaynan waxa uu hawada ka maqnaa oo wax tayala uu soo saarin muddo 10 sano ku dhow sababtoo ah markii aad kooxahan isqabataan waxa ay kala dagaalamayaan in shirkado waaweyn ay heshiis kula galaan iyo sidoo kale inaad tuwaro ama showyo ku qabato wadamada caalamka si dhaqaale badan uu fanaanku u sameeyo waxa soo dhan markii ay ka soo xiraanna adiga ayaa iska dhaafaysid ama iska niyajabaysid sababta ay midaas u awoodaan wax ay tahay in iyagu ay xiriir la leeyihiin madaxda dawladaha shirkadaha ugu caansan iyo cid kasta oo ka shaqeysa arrimaha bulshada Liil Baliil isagana xilligii uu ku sugnaa Nairobi ee uu ahaa fanaanka kaliya ee Soomaaliga ah ee qaada heesaha Afrobeat-ka ah ayaa waxa ku dhacday in si walba loola dagaalamo oo dadka qaar ay ku tilmaamaan inuu la shaqeeyo nimankaas loo yaqaan mansooniyada oo iyaga uu ku xiran yahay in sidaan uu muuqdana ay iyagu ka dambeeyaan kadibna waxa uu soo qaaday hees oo ku wada karbaashayo kuwii hadalkaas dhahayay iyo kuwii lagu tilmaamayay inuu ka mid yahayba waxaana halkaas ka soo baxday oo cadaatay inuu san kooxaas shaqo ku lahayn oo sanan af aqoon waxa laga yaabaa inaad xilligan isweydiinayso intee ayuu Liil Baliil ku dambeeyay maxaasa ku dhacay Liil Baliil sida qof walba og yahay waxa uu ku sugan yahay wadanka Jarmalka waxauna iska bilaabay shaqo iyo waxbarasho waxauna iska noqday qof normal ah oo noloshiisa caadiga ah iska wata ugu dambeyntii labadan fanaan waan ku amaanayaa lajanimadooda iyo adkaysigooda iyo kartida ay u leeyihiin in aan maskaxdooda la isticmaalin oo aan loo adeegsan sida robotki sidoo kale waxa muuqata inay yihiin niman aan lagu sabi karin hunguri iyo dhaqaalo oo ay yihiin rag waxaasi ka qadiyad weyn Soomaalinimaduna ay ku weyn tahay waa wada garanaysaan Liil Baliil iyo Kaynan waa rag aan weligood lagu qaban waxyaabo qabiil la xiriira markastana afkooda waxa laga maqlaa wadaniyad iyo Soomaalinimo waana sababta ay maanta u yihiin rag adag oo aan la loodi karin